wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland ayaa markii labaad ku guuldareysatay inay qabato ciyaarihii gobolada waqtigii ay u qabatay wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland oo isagu xukuumadda uga wakiila ciyaaraha iyo dhalinyarada ayaa sabab aan buurnayn u cuskaday in ciyaarihii goboladu mar labaad dib u dhacaan. wasiir Axmed Cabdi Kaahin ayaa warbaahinta u sheegay in 5 Oktoobar ciyaarihii gobolada la qaban doono iyadoo waqtigaasi aan la hubin. أحمد عبد كاهن وزير كعياره سوماليلاند oo amuurtani ka hadlaya waxa uu sheegay in bisha 20 ay ciyaaruhuna ku ekaayeen waqtigii hore nu qabanay waa la socoteen maantana sabab awgeed iyadoo ay soo gashay iidayaashii iyo allabarig waqtigii Ilaahay la bariyay taas waa qodob oo dib loogu dhigay sidaasaan goro ciyaarihii maanta aan dib ugu dhignay Oktoobar 5 waxaan leenahay ciyaartooyga waan la hadlaynaa ciyaartooyga goobihiina ku ekaada maalinta aad soo baxaysaan waa bisha 5 iyadoo ay wax walba diyaar yihiin ayay ciyaaruhu bilaabmi doonaan shirkadaha iyo dadka taageera maxaa ku raacay ciyaarahana waxaanu leenahay iyaguna taageeradiina sidii u sii wada. dhinaca kale agaasimihii guud ee wasaaraddaasi Maxamed Xuseen Dhabeeyo oo isagu xajka ku maqan iyadoo wasiirka iyo agaasimaha khilaaf culusid ka dhaxeeyay. Patrick Koosar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star Hargeysa.